muddo dharna haysatay ummadda Soomaaliyeedna dhibaato iyo aafo gaarsiisay iyo abaaro ay ayaga sabab u yihiin amni darrada ay sameeyeen sidaas darteed dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga iyo dowladaha amniga ka taakuleeyo waxay qabteen shaqo muhiim ah oo amniga ku saabsan oo ugu horeysa dowladda federaalka ah oo ay koow ka tahay dib u habeynta ciidamada in ciidamadii dib loo habeeyo reform lagu sameeyo in la sameeyo taliyayaal ciidan oo tayo leh in tababaro iyo hagaajin ciidamadii lagu sameeyo si looga howlgalo gobollada Soomaaliya oo dhan loona soo celiyo amnigooda waxaa kaloo la diyaariyey qalab ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhameystay waxaa laga howlgalay oon ka mahadcelinaynaa howlgallada ka socdo gobolka Shabeellada Hoose oo iska kaashadeen dowladda federaalka iyo AMISOM iyo dowladaha kale oo gacanta ka geysay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la marayo ugu dambeyntii degmada Owdheegle ilaa iyo la xoreeyay gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa Sabiid iyo Caanoole iyo Bariire iyo Mareerey intaba la xoreeyay loona sameeyay horumar kale oo ka fiican annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyay 400 oo biliis ah oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda ka sii howlgeli doono waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeer oo horena laga hadlay shirkii Brussels-na ku jiray dib u furista jidka isku xiro Baydhabo iyo Muqdisho oo asagana qorshihiisa meel fiican marayo ciidan 400 oo biliis ah oo loogu talagalay jidkaas waa xareynay tababar baa loo furayaa asagana waxaan rajaynaynaa in loo diyaar garoobo sidaa ogtihiin safarkii hadda ugu dambeeyay ee Prime Ministerka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tagnay 3 gobol aniga oo la weheliyay iyo wafdigii la socdayba waxaan soo marnay Bakool waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyay ciidan gaarayo 900 oo ciidana yaal dib u habeyn lagu suubiyay la qarameeyay loona diyaariyay inay diyaar garoobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka sidaas oo kale waxaa la diyaariyay Baydhabo oo Prime Ministerka arkay oo tababarkooda uu dhamaaday ciidan 600 ah oo ka howlgalaya ayagana furitaanka jidadka iyo howlgalka lagu suubinayo gobolka isku xirka Baydhabo iyo xamar jidkiisa lagu furaya waxaan ka mahadcelinaynaa madaxdii iyo dowladihii iyo dowladda federaalka iyo AMISOM oo gacan fiican ka geystay sidii dib loogu soo celin lahaa amniga deegaanadaas qorshe fiican iyo siyaasad fiicanna ka gaaray siyaasadda qaranka ee amnigana meel fiican la gaarsiiyey mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad u mahadsantihiin intii ka shaqaysay arrimahaas amniga iyo inta madaxda inta isugu timid aad baa u mahadsantihiin ka kaashan doonaa inaan soo qabano keeno oo isku soo darbano kulligeeyo oo si mid ah wixii hadda ka dambeeya aan wada shaqeyno dowlad goboleedyada hataa Soomaaliland doono intaasaan aad iyo aad u rajaynaynaa adinkana waxaan idinka rajaynaynaa beesha caalamka gaar ahaan in aad noo dhiifoonaataan oo si furcadiya oo aan drogs ahayn laakiin weyn inaad arrinta siyaasadana wax uga qabataan socialka wax uga qabataan amnigana wax uga qabataan si aan baahi badan baa ka jirta Soomaaliya waxa dhibaatada siyaasadda keenayna waxa ugu badan baahidaas si loo daboolo waa in ururada bulshada iyo dadka iyo kulligood aanu isku gacanta inaan qabsanaa haddaan nahay Soomaali adinkan arrintaas inaan ugu gacan siisaa baan rabnaa dib u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin bayaan samaynaan rabnaa siyaasaddeedana in aan u jahayno inaan soo xalayno kuwa naga maqan isla markaas aan u horumarino dalka iyaga aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duq magaalada wasiirada marti sharafta mudanayaal marweyn anigoo ilaalinaya maamuuska waxaa idinku salaamayaa maqaamka aad ku joogtaan dhammaantiin waxaa sharaf ah inaan ka soo qayb galay shirkan muhiimka ah
iyadoo la tixraacayo lana qiimeynayo wixii qabsoomay muddadii kasoo wareegtay shirkii kan ka horreeyey ee SBS. mudan ra-iisul wasaare, ugu horeyn waxaan bogaadinayaa beesha caalamka ee kaalmada wax ku oolka ah la garab taagan ummadda Soomaaliyeed. waxaan kaloo halkan ammaan iyo mahadnaq ugu soo jeedinayaa Amisom iyo wadamada keena ciidanka oo muujiyay geesinimo iyo nafhuri joogto ah oo gundhig u ah inay Soomaaliya qaado tubta sugidda nabadda iyo deganaanshaha. shirkan wuxuu fursad noo siinayaa inaanu qiimeyno waxqabadkii ay dowladda federaalka ka samaysay dhinaca dib u habeynta hay-adaha amniga. dadaalada dib u habeynta amniga dowladda qaaday waa kuwo ka jidisan nidaamka dowladihii hore ee Soomaaliya soo mara qaadi jireen. nidaamkan dib u habeynta ee hay-adaha amniga waxa budlig u ah oo rukumo maamul wanaag, isku duwid waafi ah, isbedel muuqda iyo lahaansho amni oo loo yaqaano security sector reform. weliba iyadoo la fulinayo qorshaha kala guurka iyo qorshaha qaabeynta amniga oo laga soo minguuriyey qorshe howleedka tubta amniga ee cadaaladda ee 2017-2020 waa mid ku salaysan 3 rukun oo aas-aas u ah tubta amniga ee cadaaladda, kuwaas oo kala ah howlgalo isu duwan oo miro dhal ah, qorshaha qaabeynta amniga iyo la wareegidda amniga xilliga kala guurka. waxaa dib u habeynta xudun u ah tayeenta muuqata oo ah kordhinta xaqa aqoonta iyo farsamada, dhaqaale tashiilis, maamul iyo maareyn casri ah iyo dabagal joogto ah oo lagu hayo hay-adaha amniga kuna salaysan ku dhaqanka sharciga, tayeenta hay-adaha garsoorka iyo la shaqeynta hay-adaha cadaaladda iyo asluubta. mudan ra-iisul wasaare, waxaa naga goonay inaanu abuurnay hay-ado amni oo aanu awoodno dhaqaale ku filanna u heli karno, lana xisaabtami karo kasbadana shacabka. sida ku cad qorshaha qaabeynta amniga, waxaanu bilownay isbedel waafi ah oo caqabad siyaasadeed iyo kuwa isbedel diidba leh oo aanu kaga miro dhalinay diiwaangelinta ciidamada amniga qaybahooda kala duwan, dib u eegista nidaamka qandaraaska, bixinta raashinka iyo shidaalka, iyadoo si waadax ah loo baahiyey tartan adag la geliyey soo xulista qandaraasyaasha. hay-adda GSC waxay ku ammaantay dowladda habka loo maaray qandaraas bixinta isbedelka leh. waxaa kaloo xusid mudan isbedelku ciidanka ahlu sunna iyo jamaaca qaabka iyo dowladda federaalka, dhisitaanka ciidamada nabadgelyada heer federaal iyo heer maamul goboleed. mudan ra-iisul wasaare, ugu dambeyn, dib u habeynta laamaha amniga waxay suurtagelisay in lagu guuleysto hay-adda nabad sugidda inay noqoto hay-ad xog ururin iyo xog raadis. sidoo kale fulitaanka wejiga koowaad ee qorshaha xilliga kala guurka waxaa Amisom lagala wareegay goobaha kulliyadda jaalisiyaad, istaadii Muqdisho, jaamacadda iyo warsheekh. waxaa guul laga soo hoyay wejiga koowaad ee howlgallada badbaado, dib u habeynta shaqaalaha iyo mushaar bixinta oo la og yahay askari kasta goobta uu ku sugan yahay, tababarkuu qabo, lab iyo dhadig wuxuu yahay, darajadiisa iyo da'da askariga. waxaa naga go-an si amba qaadista howlaha dib u habeynta anagoo ku kalsoon in asxaabteena beesha caalamka taageerada si laba jibaari doonto, diyaarna aanu nahay isu duwid ay hagayso habka madasha isla xisaabtanka Mashwan Accountability Framework. waa mahadsantahay. maanta oo bisha Oktoobar ay tahay 2 waxaa ku soo gabagaboway magaalada Muqdisho shir 2 beri socday 1 iyo 2 Oktoobar oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka. kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum. kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto. 2 waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium, xarunta European Unionka. 2na waxay ka dhacday Soomaaliya oo kii ugu dambeeyay oo ahaa maanta. ka soo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen
horumarkii la sameeyey ilaa iyo shirkii ugu dambeeyey shirweynihii ugu dambeeyey bishii Juulaay 2018 waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh la gaaray ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyey hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini'aadamka iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo matalaad Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoogga ahaa waxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen wax la yidhaahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhan yahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020 beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiim ah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada taasoo la sii horumarin karay madaxda Soomaaliyeedna way qireen in horumarka arrintaa laga gaaraa ay muhiim u tahay in horumar badan laga sameeyo arrimaha siyaasadda amniga iyo hagaajinta ama dib u habeynta arrimaha dhaqaalaha taasoo uga baahan commitment ama uga baahan dadaal dawladda dhexe dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada madaxdooda